waxbarashada u gaadha marka inta iyo fikradaha badan kale oo reeyay soo wada geeyo iskuma diidin fikradaha inaan halka gaadno inaan tacliinteena wanaajino in daayirteena ay wax badan baro oo ka qayb galaan adduunka aqoontooda iskuma diidin su'aasha dadweynaha waxay sababeen u gaarayna maxaynu talaabo u qaadanahay inuu waxbarashada kor u qaado maxaa waxbarashada qaranka ay aatayeen hoos ugu dhigtay uga calacaleen xageebay dhaliishka jiraan isagana oo ay musaxno ayuu muhiim waxay tahay inuu barnaamijka afrino waxa koow ka ah inuu dhaqaalo helo qorshaha shanta sano soo socda wasaaradda waxbarashada waxay u baahan tahay 300 milyan oo lacagta Mareykanka si ay u gaarsiino heer waliba ka ugu sareeya adduunka ahayn dhexdhexaadka waxbarashada oo ay uga qayb gali karaan dadka warshada ay soo saarto warshada waxbarashadu waxay soo saartaa soo adduunka noqon karo wax ka qayb gali kara oo ka socon kara waxaan fikireynaa saddexda boqol ma heli karaa marka hore anigu waxa leeyahay sida beer buu heli karaa maxay yaa naga akrinaya tusaale baynu eegnaa wala ways wal saameysa anigu waxa leeyahay waxa ugu horeysa ee lacagta in laga hortaagan waa fikirka ummadda Soomaaliland madaxyada jooga say ku fikirayso oo u baahan wax ka bedesho fikirka caamka ee haysta waxa weeye dadku sidii ay uga soo baxay dagaalo fara badan environmentka dagaalada ee ugu wareegsan ee 20 sano maskaxda dagaal oo ka fiirsay cabsi ayaa dadkii waxa ku dhacay in aanay wali si dhaba isu aaminsaneen inay wax wada yeeshaan oo wada shaqeeyaan duruufaha kale soddonki sano u dambeeyay ama afartii sano u dambeeyay hadda dhacday ilaa dagaalkii sababtiisa ilaa maanta geeygan ku noolahay cabsi iyo dagaal ugu guuray kol bahalkay doonaan ha ahaade markaynu Soomaaliland nimaado waxaan dhammaanteen isku bogaadnaa runna inay nabad ku noolahay oo nabad ku dhisanay oo wax badan yeelanay haddana inuu wari jiro maskax dagaal ay ugu jirto oo haddii halkaas soo mara ama qof hadla aad isweydiinaysa kuma aha muxuu ahaa markaa هذا هو شيخ عبد الله هو شيخ خالد التكوين واحنا قلنا الشيخ خالد التكوين محوها ورما عليه والله هو الشيخ وانا سنه اسر كصبح والشيخ وانا سنه اسر بكصبح والله يركع يدرس قران واخرها هاي قرانها يوها عبا بني ادم مركو بغضو وحد دبل غليا يونت ير markay is-aamnaad jirto baarta meel koox yar isku aamna reer qoys waa arab ku dhawaad dawladda oo dhan qabaan dad badan baa wax laga yaabo laakiin wax la isweydiiyaa lama qarsado ee wax la seen uga baxay marka waxa weey hadii la is-aamino oo in hawsha dalkeena amniga la tacliinta leh caafimaadka la aan u watashano waxa wax qabanay talaba qaadan sabab nin kastoo madaxweyne noqda marka hore la dooranayo marka lagu soo galbinayo kursiga waa nin wanaagsan oo soo wada amaano loo soo saartay markuu meesha joogana waxa la wallahi ninkii aan moodin ma sidii ma aha markuu muddo joogana waxa la qabaa waa kana kii hore dhaalay waa la sii faal maxay taas u dhacaysa expectation oo dhigana waxaan ku balan qaadanaa inuu wax qabsado waxa la oranayaa maanta inuu baabuka meesha u dhigay tusaale ma hada jirta haduu laba walaalo shan walaalo haduu meel u magacaabo waxaan u baahnaa wax qabto wax yaqaan marka meesha lagu dhigo intii aad saa ku soo jeesay ilaa mucaahada shacabka kula soo galay waxa la oranayaa wasaaradda reerka maqay reerka ma aha shaqo qoy fi afro حتى متعلمينتي حتى أرضيها حتى إنك يربى سوف كرايم حتى الدولة دي أقدر شيء صدح وزارة ما هو حوالي أقول
وأنا شبي تيهون وحبرشها كاملة وزير ساعتها أو ماستر أفرت السنة وعيرة وزير كل حاجة iyo agaasimaha oo PhD u diyaarinaya waxbarashada ee psychology macallimiinta agaasimaha tacliinta sare soo certificate ka qaatay haddaan idin sheego xanta la yiri way diyaar kolka war wasaaradda ay dhigtay nima professor wala ba afkaran maayo labada mid la afkaran maayo seeliyay maxaa loo afkaran waayo waxaan u diray ka hadlaan tacliinta ardayda sidee ardaydu wanaagsanaysaa maxaa tacliinta ka laaban waxa soo fogay laakiin waa diran reeyada soo ururay odayaashii dadkiina u tagay deetan u sheekeeyo dawladda taageer kamar waxa la mid ah wasaaradda maaliyadda gabayooda certificate baan ku qaatay kaasoo waxa waa master kana maxaa ويارد مية وزارة المسؤول يحجوا ويمسكتي وأنا حمد يقول وزارة المالية العداد كفر عيال بلد بيتي ولا سوى شنو يفرتشير ماستر أو وزارة المسؤول يحكم أو بأدم برتي أيام كنت شايف محيي سوق قبلها دولة هذا تاجر ومعلومة دولة أمام ومعلومة بعض يلا شرير ودولة ما حكم دولة وأنا قالين والله ما تكسر شفت هذا السلوى حاجة جايبها كدوري حبلوا مركو روحوا وصحي مايا لكن وانا لك يا قوت وجهي ما كدوري halka waxa ka soo baxday in dadkii uu ka eegay marka hore eesha sidii geel soo qaaday oo dadkana la soo rugaliyay in qolo waliba qaaraan qaybta geel ay ka qaateen soo reeb wuxuu leeyahay wasiirku wuxuu qaban karaa laba weydiinayo agaasimo wuxuu qaban karaa laba weydiinayo waxa lagu dagaalamayaa reeb ma تسوى تردد كسبة دون ده كتاعي هاد سد حبقولة مليان هادي شن سنة اللي يدوري إن العروتين وحكوا برا سنة كي قات كوحنا كم حنا شن بقولة مليان أو دور بقات كتير رجال قاعدة وحنا نسوي مو يدارتان من الدنيا كرهو مرة ترى هذا شن بقولة بدي قات أنا الليل ترى جاي عسل ده وحكيم بالغورانية هذا أنا ده قات كان العتة سنة قبل حنا يرينا والمشقة كلها ويا الله يقول هذا مسوق قيادة كم حد يقوى كان واحد قيران ضد العب سوي أنا كله من ودي بقى بمشيت هذا قات كمان اللي وديني هاي ما المها غير يسكون كبرها بسوي قيران حديث وهذا الحديث بيكون شايع آخر نك فقير كا إدتي سكوي يتاجر كا بخير كا يضلك وحوسي بالي عذابته واحد قهر يا فقير كا كبراني إدتي سكوي كيف حولها هي بخير كانوا مدير جديد وعلمته وقدمها وايو دانتيد بكلوري حقيقة اسمه تفسيري كان واحد يقول بهنا واحد يرى إنه هينا حقين كوي كذا لعقت ميل كلمة كهرين ده نقاط بس كبدي مركب مالية صارت كذا صغيرة إلى مالتي الله ونحرته إن حكنا على برنامج ميسانين سيأوه يحصل عليه بقول كيبا شن يلحق بالغ بحياة أمنك يا مامك بقول كيما شن يلحق وحوي لبض الضرع ما يحتوي هذا يعي ماذا أمن واي إذا كان الوجدين يعني لعقت قبة حلا قرمة كريئة بيرا إسرائيل بالوالباء مصلح بنظر انت قبة حلا حدي انت سوقوا لدونا مدقشن وانو عقلي gudaheeda dagaalada qabalka aad iska dayna ama xal u helo tacliinteena inta ay ka badan baa loo heli lahaa waxbarashada dadana laba dhangood baa lagu dhacaa hadaan raay xukuumadda laba dhangood baa marna lagu dhuftaa horumar samee tacliinta iyo waxbarashada iyo caafimaadka hagaaji u gurmo dadka seenay kala qabo dhaqaalaha labada waa qaybsan kaabeer doorana dadku waa inay maskaxdooda bedelaan وإن يقرتها ومحاول حياة تورتها واضح معلوم ما تشيلوا قبلها ويريها قبل أن صدق الجواد مر له بالمدين تدسلاي أو كوحة ما ها شخص ده خيارات ولا دوله كلها مركب ده محل شكلها ووحي
oo la isku khilaafay waxa u badan halka barkad baa ka qodaya iyo ka qodmaysa waxa u badan dhulka anaga lahayn ana beer ka qodaya iyo qodmaysa waxa u badan halka tuula ka dhisaya iyo ka dhismaysa dawladdu maxay kala qaboway dadku maxay kala hadhay dawladdu iyada tiraysan iyada baqtiya markuu wasiirka dakhliga ama duqdi magaalada haddii uu soo saaro qorshe oo qorshe la raaco asad dadka diido oo iyagoo xoogan oo reera ka soo horjeedsan ay hub soo qaataan intii naamidna oran maayo inta ciidan talaa iyo ka hortag haddaan qabo waa in dawladdu waa baqti oo wax tarto haddaan laayo dadka oo labadii cilmi islaamiyeed soo gurana waxa la yiri war mid waashaysa waxa ay dawladdu xaleed marka fardi waa la qaban karaa shan qofna waa la qaban karaa dambi laakiin dad sas qabo markay wax yar soo qaataan ba hub iyo qabiilo kala baxaya waxay u baahan dadkii in aad iyo aad waxbarashada iyo aqoonyaha aan u jeedino dadkii ina fikirka ka duwan keenaan marka waxbarashadii lacagtii la siin lahaa waxay naga lutaa meel aynaan garin fara badan tu kala timaada dawladdu waxay ka dhisantay dadku ku heshiiyay inay iyana qorshe iyo maamul keento ay horumariso shacabka oo bixiyo dhaqaalaheeda oo cashuur iyo kii waxaysta wax waajibo shaki kala jira oo kala mid ilaa sida ay uga sasnay dawladdii dictatoriyada siyaad barre ee loo dagaalamay عقدتي دولة لقى قاضي دولة هو ظالم أو يكون صوص عطها أو يكون قال سنة إسكعلي وحبها سين فكرة ما يقول شفتها حاجة دولة واحد غير رأينا تابع يسوي دولة أي هو بيسوي حلول بين أمانتها أو حوالها دولة قفوا ركتها تشري وعيداتين ما صعدها ضد بدل دولة شقية أما صامرة وحبل قال لنا دولة بعرف يلا دولة حساب سيء قفلت ولا دولة إنت قاضي تتبحر عي قفك عادي ما أمسنا الدولة وعرفتها كقاضي إلى وحقوق قبل يسوي حاب سير كبير الأنس إنه نتشاف مش ورايا تاسوا واجب ولا دولة صارت إلى أهون قرار شعبنا وكعاوي ووايد بحال وعاوية حضوا إمك من دولة كمدي لعب الله قبطهم أنت صديق قبيل كأنك بقى يرجلوا سجري ما تشيل قبيل إلى كود وسماس وغيرانه ما تشيل إلى كود قبيل وحياه marka aad qaataaba reerka oo dhan oo duwan ku mara kuleey warni wanaagsan booha warsa waxa deem macna mara way dhacdaayay inuu wuxuu musayiriyay inaga daa psychological dawladdu waa la amsani marka waxay waajib ku in dawladdu la nadiifiyo oo dhib badan laba taana waanu ballan qaadayna waanu wadayna laakiin waa hadii aan shaqo gacan ka helo وإن مدحوين سسحا كحجانك سكودرا وزيرة سياسة كم مسؤول وخبيا مركب وخبيا إنه واحد تقولون إن غير سلام لكن واحد كبير إلى أن أرى إبانين كتير مرتين غير لا نشيل على الصبح والمركب يسألنا كيشين أنا واحد قبا حتى المسكحين هنا بدلهم وأي قضبات دموع يجمعه إنه تعليته وين إنه العاد عفاس كان عيهرين haddii kala nin kasta oo dardarciya shicibka ka xoog weyn mar hadduu shicibka wixii maskaxdiisa aanay halkaa u jeedin dhibaatada soo jeedin tu kala u baahan inuu ka xoreyno inuu saagno maalin walba waxa ay galgaartaa hay'ad yar meel ka timid ma qaan lacagta ay bixisay ma qaan waxa meesha laga soo riimaya mid baan isku raacsana oo inta wada wadaagsan dad kala soo bixiyay badalkooda lacagta qayb kamid ah yaa la leeyahay kiniisada ka soo wariya oo isku gudbinay marka inuu Soomaali muslimaan ahayna waan iskala qabweynahay kiristaanka iyo qolada gaalada psychological iyo iimaan ahaan miyaan nagu ceeb ahayn in intii ay fikradaha ka soo dawladda ahayd ilaa maanta ay dawarsi maxaa la siiyay oo ay ku noolahay wali ma ku faahmo walaahi hay'ad halkan oo mustawa xiriir wanaagsan haya bariyahan oo wax yar hajinayo waxay uga sheegay kafay baa iga soo baxay miyaan ka khayr noqon inuu maxay nagu abuuraa hadii annaga aynu faanka bilowna inta wankii aan bilowday inaan ka abuuro ma faanki hay'adda qaadama soo ma baahan fikrada kaga bedelayno raawar maxay nusoo ku bedelaa waxyaalo badan baynu baahan maskaxiya u fiirsano oo ay warsataa is-aaminada oo ah qabalka dhexdiisa
iyo dowladda iyo dadka oo qolo walba dhinaceedu ay xoogga saarto waxaan ku soo ururinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bacda waxbarashada macallinka marka la dhahaa macallinka waxaan ku mataali karaa islaan faqiira oo toban carruur ah hooyada faqiirkii haddii laba xabo hore oo soo heshay caawa carruurta cunay tiraahdaa iyaga ka weyn baa idhaahdaa wardi hooyayo reebo hooyada maalin ka maray waxaad tiraahdaa haddaad idinku cuntaan anoo macallinku weligeed taasi ma dhaco waxay ku shaqeeyaan muhashaarada ugu yar ilaa intay ogeyn anaga wax soo mareen macallimiinta baa joogta beeshaan maraya hadi caafimaadkooda ma eegto waxay ku niyadsiiyeen inay yidhaahdaan ma hadduu ardayga meel gaaray anna waan gaaray dhibaato kasta ha qabay aad iyo aad maruu mahadnaqaya macallimiinta iyo bacda waxbarashadooda waxaan kusoo gunaanadayaa hawsha aan wada qabano qofna dhinaciisa ka joogo wasaaradda waxbarashada waxaan ku garab gelaynaa inaanu gaarsiin iminka waxay maraysaa 8 iyo waxbay boqolkiiba ay miisaanada ka maraysaa marka loo eego dhibaatada haysta way wanaagsantahay laakiin commitment-ka markii uu baaris tagayay ee gelayeen mid 13 baan wax lagu siinaya waxaan ku yiri waxay yarayn doonaa gurmadka beeraha ah iyaga caqli keenay wad way gaarsiinaa shan sanad ayaa tokaas sanadka labaatan ilaahay inuu waa gaarsiin loo ku yaalay waxaan soo ururiyay waxa loo balana inaan baahiyana si caqliyan u eegno oo aynu horumarkeena u wada jeedsano oo dhaliisha isu sheego isla saxno dowladnimada iyo si caalamku dhisana aynu u guuro aynu maskaxdeena aad u xog bedelaan ku talinayaa